gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir garyaqaan Maxamed Cismaan Axmed Baari oo uu helinayo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta kormeer shaqo ku sameeyay qaar ka mid ah waxyaha ay ka kooban tahay maxkamadda racfaanka iyadoo ay u kurgalayeen shaqooyinka halkaasi ka socda. gudoomiyaha ayaa sidoo kale kormeer ku tagay qaar ka mid ah maxkamadaha degmooyinka gobolka Banaadir isagoona halkaasi kula kulmay gudoomiyaasha maxkamadaha ee degmooyinkaasi oo booqday. kormeerka kadib gudoomiyaha ayaa warbaahinta uga warbixiyay ujeedka kormeerkani iyo waxyaabihii ay ku soo arkeen inta ay kormeerka ku guda jireen. maanta ay taariikhdu tahay 1 bisha 8 2022 waxaan kormeer howleed oo kamid ah howlaha caadiga ah ee maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir aan ka sameynay aniga iyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka qaar kamid ah ama xafiisyada kala duwan ee maxkamaddu ka kooban tahay sida maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir iyo xafiisyada iyo kaalimaha kala duwan ee maxkamadda gobolka iyo racfaanka. sidoo kale waxaan kormeer ku sameynay checkpointyada amniga ee laga maamulo maxkamadda si loo hubiyo xaaladda amni iyo sida ay ciidamada amnigu ugu foojigan yihiin. sidoo kale waxaan u kurgalnay sida ay kaamirooyinka amniga lagu ilaaliyo ay u shaqeeyaan. intaa kadib sidoo kale waxaan kormeer ku tagay qaar ka mid ah maxkamadaha degmooyinka gobolka Banaadir. ujeedka kormeerku wuxuu ahaa in la dardargeliyo howlaha garsoorka gobolka Banaadir si wax looga weydiiyo mas'uuliyiinta loo xil saaray shaqada inay qabtaan iyo shaqada xafiisyada ay ka socoto. waxaan kormeer ku tagay maxkamadda degmada Waaberi oo howl maalmeedkoodii caadiga ah ku jiro iyo bulshadii loo adeegayay intaba waa la kulanay. sidaas oo kale maamulka maxkamadda degmada oo ugu horeeyo gudoomiyaha garsooraha iyo shaqaalaha kale ee maxkamadda waxay warbixin naga siiyeen sida ay hawsha u socoto iyo guud ahaan caqabadaha ay haysto reer Waaberi. waxaan aad ugu faraxsanahay in shaqada degmada ay ku socotay si habsami ah bulshadana loogu adeegayo si daahfuran. sida intaa kadib waxaan sidoo kale tagay maxkamadda degmada Xamarweyne oo kamid ah maxkamadaha ku yaala gobolka Banaadir. sidaas oo kale waxaan warbixin ka dhageystay gudoomiyaha maxkamadda degmada. waxaan wareystay oo aan la sheekaystay garsoorayaasha kala duwan ee maxkamadda ka shaqeeyo shaqaalaha iyo howlwadeennada kale ee maxkamadda ugu horeyso gabadha kaaliyaha sare ka ah. waxay warbixin naga siisay hawsha maxkamadda ee maalinlaha ah. sidaas oo kale waxaan aad ugu faraxsanahay in meelaha aan maanta tagaba ay ka socoto shaqo aad muhiim u ah oo bulshada gobolka Banaadir muhiim u ah. ujeedka kormeerka marka ama ha noqdo kormeerkan aan ka bilownay maxkamadda racfaanka iyo gobolka iyo degmooyinkaba wuxuu ahaa ujeedkiisu in la hubiyo habsami u socodka howlaha garsoorka gobolka Banaadir maadaama ay mas'uuliyad guud maxkamadda racfaanka gudoomiyaheeda ay ka saaran tahay howlaha garsoorka gobolka Banaadir isla markaana ay tahay waajib uu tilmaamayo xeerka nidaamka garsoorku. waxaan isleeyahay marka kormeerka iyo ujeedooyinkiisu waxay ahaayeen kuwo guuleystay sababtoo ah maanta waxay ahayd mid ka mid ah maalmihii shaqada. waxaan gudanaynay waajibaad dastuuri ah oo na saaran. Farxaan Salaad warbaahinta qaranka Muqdisho.